hooyo Soomaaliyeed ahay wiil Soomaaliyeedna waayo yaa hooyo aminkaygana ma sugnaani xaali gurigayga ma hooyan habeen horena gurigayga uma hooyan inkastoo dambiilihii falkan geystay uusan dhacdadan foosha xun ku metelin qaranka ama cid kale haddana hooyo Firdowsa oo si dirqi ah ku badbaaday iyo wiilkeeda Cabdisalaan oo dhibka la kulmay waxa ay qabaan tabasho ah in lagu dhibaateeyay shaarka qaranka loona adeegsaday hub xoog iyo waqti ay xaq u lahaayeen in iyaga lagu ilaaliyo hooyo aniga oo sidaan markaan arkay nimankan labada nin oo hubeysan markaan arkay baan aniga halkan ayaan jiiday daaqadan furtay shabaqana meesha iga dhaganaa shabaqana baxsanayay waana qaylinay ugu aaminsanayay xabadaas meeshaas ku dhacday oo soo riday waa dhacdo xanuun badan hooyo Firdowsa oo ah dan yar halgan adag ugu jirtay korinta 3 caruur oo ay kali ku tahay koriimadooda aabahoodna uu la xanuunsan yahay xanuunka dhimirka waxaa xilli saqbar ah gurigeeda xoog ugu galay askari la sheegay inuu ka tirsan yahay ciidanka dawladda federaalka kaasi oo ugu dambeyn kufsaday wiilkeedii curadka ahaa cadadaas waxay ahayd habeenkii sabtida oo ahayd bisha 12 taariikhda anoo gurigeyga jiifo 8 saac tahay habeenimo aan lagu soo weeraray laba nin oo iskarta dharka militariga xiran hadday soo weerareen aniga shanqadhaan maqlay haddaan maqlay neecla yaraan haystay waa ifiyey haddaan ifiyey shanqadhi waa la joojiyey aan jebinayay daaqadii baan ii soo fuqday aniga tan yar oo markaa ii soo kacday dirshadaan kala booday intaan dirshadii kala boodin oo meesha aan fujinayo waxaa dhacday xabadii ugu aaminsiinayo banaankuuna taagan yihiin labada iskari banaankay taagan yihiin xabadii la soo riday oo lagu aamusinayo waan aamusay markay xabadii dhaacay tiri ee meesha qaac tiri asigadeedii soo daadatay ana meeshan aniga gabadhii ka boodnay markaan arkay inaan waxba i gaarin aan gabadhii la cararay daaqadan aad arkaysaan ayay hooyo Firdowsa kala soo baxsatay gabar ay dhashay oo 8 sano jir ah oo ay u arkaysay in iyadu ay kaga nugushahay dhibka dhici kara wiilasha markaasi gudaha qolka xilliga falku u dhacay ay uga soo carartay iyada oo waliba markaasi rasaas uu ku furayay askarigii halkan falka ka geystay gurigan soo weeraray inkastoo alla uu ka badbaadiyay qoyskan in rasaasaas ay dhibaato u geysato adinkii ugu dambeeyay haduu dhacay waa la soo raacay wiilka baa nin kale saa looga kor qaaday kii kalena maan ugu imaanin iyo qorigii iyo sakiin iyo kabihiisii meesha laga bixiyo wiilka ninkana waa qaawanaa intaas uu joogay surwaalkii ciidamada boomihiina wuu xirnaa intaasna surwaalka u taagnaa kabihiisiina meeshana laga qaaday qorigana meesha laga qaaday tuuriyada hadaan bilownay waa la soo bixiyay mootaal saar mootadii aan ku hubsanay saldhiga dhaqaatiirta isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho oo loo geeyay wiilka ayaa xaqiijiyay in wiilka fal kufsi ah loo geystay sida ay inoo sheegtay hooyadiisa saasi hooyo arrintu dhacday haddana maanta CAD isbitaal Madiina la geeyay isbitaal Madiina hooyo waxa la yiri wiilkan ninkan wuu fara ku xumeeyay sidii baa la soo gudbiyay misna CAD aan loo gudbiyay CAD aan ninkii qaabishay maanta oo xareysay walow uu xiran yahay ninkii falkan geystay hawshana ay gacanta ku hayaan hay'adda CID-da iyo sidoo kale hay'adaha ammaanka ee dalka haddana Cabdisalaan Yare ayaa dhibana la ah falkan ka baxsan diinta anshaxa iyo dhaqanka suuban ee loo geystay waxaana hooyadiis ay u dalabtay in wiilkeedu uu cadaalad helo ninka hadda maadaama uu xiran yahay hadda maanta CID-da igu jiro waxaan ku faraxsanahay inaan maxay wax la ii qabto oo dawladda Soomaaliya wax ii qabato hooyo Soomaaliyeed ahay wiil Soomaaliyeedna waayo yaa hooyo aminkaygana ma sugnaani xaali gurigayga ma hooyan habeen horena gurigayga uma hooyanin laba meelood oo xaalad kala seexda dhafar saa'id ah waan iga muuqda iyo dhibaato saa'id ah gurigayga waa u jeedin falkan kufsiga ah oo ka dhacay degmada Shangaani ee gobolka Banaadir waxaa ka horeeyay fal isugu jiray kufsi iyo dil loo geystay Allah u naxariistay Xamdi Maxamed Faarax oo ahayd gabar yar oo sanadkan ka qalin jabisay dugsi sare isla markaana nolosha hami sare ka lahayd waxaana falalkan aad u cambaariyay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida kuwaas oo ku tilmaamay in ay yihiin qatar soo fool loona baahan yahay in wax badan la iska weydiiyo maxamed idla raadiyaha iyo telefishinka dalsan halkan waa xaafadda Jabuuti degmada Shangaani ee gobolka Banaadir waxaynu ka warami doonaa dhacdo la xiriirta kufsiga wiil 10 jir ah oo 12kii bishan dhacay
laba nin oo midi u hubaysnaa kuna labisnaa dariiska ciidanka militariga Soomaaliya ayaa 12 bishan xilli habeena waxa ay weerar ku qaadeen kaam ay degan yihiin dad danyar ah kuna yaala xaafadda Jabuuti degmada Shangaani ee gobolka Banaadir. qoyska weerarka lagu qaaday ayaa xilliga la weerara ahaa kuwa hurdaya gurigan. daaqada idin muuqanaysa waa halkii ay ku badbaaday hooyada qoyska iyo mid ka mid ah caruurteeda. hase yeeshee waxay guriga kaga tageen wiilka kufsiga loo geystay oo aanu magaciisa qarinay si aysan saameyn ugu yeelan mustaqbalkiisa dambe. laakiin waxaan go'aansanay inaan warbixintan ugu adeegsano magaca Axmed. ragga weerar ka geysta ayaa la tilmaamay inay guriga halkan ka soo galeen. soo galista guriga ka horna waxa ay iska soo hormariyeen xabad. dhicista xabadda kadibna waxa goobta isaga baxsada mid ka mid ah raggii weerarka soo qaaday kaas oo ahaa midka aan hubaysnayn. haddaba sidee buu u dhacay kufsiga? sideese ku suura gashay in gacanta lagu dhigo ninka falka ku eedeysan? waxaa Shabeelle la hadashay hooyo Firdowsa Maxamed Dirir oo ah hooyada dhashay wiilka dhibanaha ah. babaqaan fiiriyay haddaan fiiriyo waxaan arkay laba nin oo midi yahay darka dariiska militariga wuxuu leeyahay kan kalena wuxuu igu jiraa laabka. aniga haddaan sidaan ogaaday wiilkayga yarka ah ay iga xoogeen waxaan dhahay hooyo cabsiran meesha ka kacaan dhahay tuugaa soo gashay. haddaan saan dhahay waa niman i hubsaday inaan ahay maamo aan ilmaheedu yaryar yihiin oo meeshana ila degan aan saas u ogeyn nimanka. markaa hooyo aniga waa haddaan argagaxay maxay ahayd gabadhii yareed iyo maxay ahayd aniga waxaan ka baxnay dariishadaan haddaan hooyo ka baxnayna maxay ahayd oo kale wiilkii loo soo galay meeshana uu jeexday. hadduu soo galayna wiilkii uu xoogay kii kalena waa iska baxiyey kana guriga lagu qabtay. wiilka isbitaal Madiina la geeyay shay. haddii isbitaal Madiina la geeyo waxaa dheecaana laga qaaday waxa laga helay shahwadii ninka maxay ahayd oo kale ku siyaa jiraa la dhahay. maantana waxayna soo siiyeen cadeyn wanaagsan ayna soo siiyeen. haddana wuu ii xiran yahay CID aan loo gudbinayaa biritool haddii ilaahay raali ka noqdo. haddii ilaahay raali ka noqdo. sidoo kale waxaa Shabeelle la hadashay hooyo ka mid ah dadkii ku soo baxay qaylada qoyska iyo dhawaqa xabadda. dariska ahay ma fahamtay waxaan ku argagaxnay wax la yaab la xabado la ridaayo ninkii oo meesha jiifo oo buumadii ka siibanta oo surwaal ka siiban yahay oo qoriga ag yaalo oo alaqi iyo xabadii qolof baalkeedii meesha yaalin sakiin iyo kobihiisi anaa qaaday oo xabadii qolofkeedii iyo sakiintii iyo kobihiisi alaqi caag ku jiray anaa geey sadhiga. maamulka isbitaal Madiina ayaa xaqiijiyay sax ahaanshaha kufsiga wiilkan yar sida ka muuqanaysa warqadaha idin muuqda. dhinaca kale booliiska Soomaaliya oo xiriiro aanu la sameynay ayaa sheegay inay wadaan baarista kiiskan isla marhaantaasina wixii ku soo kordho ay la wadaagi doonaan warbaahinta. horaantii toddobaadkan ayay ahayd markii Allah u naxariistay degmada Waabari dil iyo kufsi lagu geystay gabar ardayad ahay taas oo lagu magacaabi jiray Xamdi Maxamed Faarax. awalan mudana gudoomiye haddaad ila galaato anagoo ku hadlayo magaca xildhibaanada waxaan jeclaan lahaa inaan ummadda Soomaaliyeed la wadaago tacsiyo tiiraanyo leh oo la xiriirta kufsigii dilkii dabaq ka soo tuurkii Xamdi Maxamed Faarax oo ay u geysteen niman arxaanlaawayaal ah oo ilaa iyo hadda aanan garanayn jaani ciribtoona meesha dhigeen lamaha ammaankana aan ka sugayno. mooshinkii maanta aan keennana haddii midnaha nooga dhigteen idinkoo xeerinaya xaaladda guud balse waxaan rabaa in xeerasaadka qodobka 25aad farqadiisa saddexaad xarfaha a iyo ba iyo ca intuba in ay noo ogolaanayaan inaanu mudana guddoomiye maanta ajandaha inaan ku darsano inay ahayd balse annagoo idin qadarinaynaa waxaan leeyahay inaysan qaban in arrintaa dib loo dhigo. xildhibaanada halkan joogo maanta koorabka ku fadhiya halkan dhammaantood wadar ogol ayay mooshinkan u saxiixeen. marka waan qabaa anoo kula qaba in guddi loo xil saaro oo amar aad ku bixiso qaraar inaanu soo saarno arrintaa iyada ah inaanu culays ku saarno dabagal dowladda. waa arrin loo baahan yahay waana codsanayaa intaan ajandaha labaad loo gudbin arrintaa iyada mudana guddoomiye inaad il naxariis leh iyo guddoomiyaal aad ku eegtaan noona ogolaataan inaanu arrintaa ka hadalno.